لي وصوه لي نوع مقعد صفاضة ما هي قبلها فاطمة حديق محمد بالله فاطمة حديق محمد ها إن أنت سود هذا إن أكو سود هذا محكمة تيم جبرة تيم وش إن ماشي نيو حواي و ماشي ناس مرتيننا وحرمنا إن برشة وحياة بدن قرصون إن برشة وعبد النعاو waxaan rajeynayaa in codkaada kor nooga qaado magacaada noo sheeg gabadhana maxaa u tahay iyo magacayga Yuusuf Cabdullaahi Cali baa la dhahaa magacaas waa gartay gabadhana walaasha Ducaad Cabdullaahi baa dhashay Cali waxaa dhashay walaasha isku aabe isku hooyana baa dhashay oh my days she's too young oh my days يورن فاضل ما في عنتها بايو أي ما في عنتها حارتك ورايو ما شاء الله وعكو يدينا يا فاضل أيو دكسي ما لقيتها وحير عادك هذا كرنا وقاعد دكسي واحد برشة ما لقيتها حاجة مرسى قرانك جزء شناد مرزا ما شاء الله هاي أيو وحاكو يدينا يا وحبر الشدة ما تقان اسكول ما دقتها دنك ما تقان ما دقة حاجة مرزا جلاسك لبات اوكي يا جلاسك لبات دقتها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سوري oh my days هاي وحكو يدينا هذا واي مسا ميقه ايه وحسن مسا عودك كرو قاد جر سدي ما شاء الله صبر بار اصحابي حقنا وحاوا قبدي واي شاشدها اللي قراعه ما شاء الله سدي جر ما شاء الله وحاول هويل ويرتهاي ان سو دhow gacaliye xaramna ina arimihii socday maalmaha ina ka wareysano waxaan maleynaa ina waxba naga qarin doonin caawo bulshada Soomaaliyeed ee dhamaantood ma taqaana way in wada aragtaa marka soo dhow brada sida wax u dhaceen xaramna bulshada min bidaayati yalaf soo dhow xaramna min bidaaya ilaa nihaayay إن برشة أصاب بالله سقط قضبنا ما تقعنا أو قضب يسوع أنت سؤال أنا أكاودي كرنا أكاودي سيدا وركتا أدو أبو وعن جرو نقول يرتا عاد كرو قاد وحي دبتا أيو حقيقة أيو سي وحود عنا دبتا إنا كهل حلقة كشيء وصح ماذا أوكي عقبنا عن هواي ذا داوي هذا هو ويدمت أيضا يا ريد متى ماي أيضا واحد دمتي تدوس سنة جد بلا ملعب أوكي هواي هذا هي أصلا تبلوين بلوين Oh my God yeah أوكي وحكوا يدينا أبيه إنمي أبهد فانيون هم بدعوا دنيا الله شقي يمين جه أوكي أرنتان بعد حميد دعدي عمالها السوشيال ميديا هايستي ما حرمنا هنا نقول ده شيء إلا أنت يكسر لك أنا سي أنا يقول لي نجت waxaa dhacday anaga nagu dhacday ilmahaas guriga noo jooga oo iskool noo dhigta xaafadda walaalaheed la nool baa gabari intay xaafadda ka kaxaysa waxay nin u geysay magaalada jooga boosaasa dhexdeeda ah kadibna ninkaas wuu baasaday codkaaga gogo-ayo hase u fahanno oo mar kale ku soo celi codkan waxaa sameysa kor u qaad
niyo waxa dhacday gabadhaas ninkaas wuxuu soo ka sheegay inuu adeerkeed yahay hal mar sug waxa samaysaa mobilka qadka meesha uu socday ma taqaana ila joog waxa ma taqaana wixii fikirkaadana ka dhiibo diyaar ah horta hore kiiskan oo ku dul maraya iyo kiiskan sida u dhacay iyo informationkiisa saxda ah gabadhan hooyadeed bilooyinka hore dhimatay oday aabaheed da'deedina haddaan kuu sheego waxaa waaye 8 jir waaye waxaa dhacday da'deeda waa 8 sano jir waxaa dhacday in gabadhan uu aabaheed nin kale adiga ayadoona ogeyn familka ogeyn gabadhi ma taqaana ayadeeda korsato ninkan wuxuu la dhashay ma taqaana wuxuu la dhashay ma taqaana wuxuu yahay abti ma wata soomaha hooyadooda la dhashay marka waa gabadhii oo familkii ogeyn adiga lacag sida saxda ee media ku jirtay lacag $4,000 oo wuxuu ka siistay nin jooga Carmo ma fahantay aabaheed ma fahantay gabadhii family ma ogeyn aabaheed markuu 4,000 qaatay gabadha family-gana waa laga soo xaday oo waxa la geeyay Carmo gartay family-ga baaritaan kadib waxaa la soo ogaaday ninkaas inuu waa gabadha uu guriga ma taqaana ee la joogto ayadana oo ma taqaana wali aan qaangaar ahayn isla qabsi kadib waa gabadha family-ga waa loo soo celiyay waxyaalo badan oo ma taqaana afka laga sheegi karno munaasib ahayn meesha ka dhacayso asaga ma taqaana oo naga sharax doono ilaa ay heer maxkamadda arrinteedu way gaartay dib bay isugu soo noqotay cid ka hadasho oo social media uga hadasho ama social media keentana ma jirin qof kastana kiiskan uu ka dhacay ma garatay arimo jiro awgood maadaama dadka kiiskan lug ku lahaa ay yihiin dad ka mid ah xubno sarsare ma fahantay soo marka waatana waa gabadha adeerkeed hadda sida sax information ka saarana ku maqla waaye hadda asagaan wareysanayna oo si sax ma taqaana warku noogu sheegayo soo dhawaada diyaar way aan dhageysano soo dhaw abtiga dande waa gartay fiiga waa hal bar intuu arrinka galay hal mid ma ku dhigi kartaa arrinkan dhalinyarada ah waa ku salaam walaalkay magaca Yusuf maxaa la dhahaa hadda muhiim ma ahan gabadha inay kaamirada ka soo dhex muuqato oo meesha ay fadhiso waa caadi adiga kaliga kaamirada ama taqaanaa wax walba sheegi karo gabadha waa gabar yara kaamirada ka leexi ma fahanti marka adiga kaliga waa muhiim sida mobilka adiga gacanta ku qabso qofna ku qaban adiga gacanta ku qabso mobilka ku haysta sida marka warka sida nimayo saawada ogtihiin gabadha horta ana abtigeeda ma garata ma fasqirka gurigeenu way ku soo kortay 8 sano ay jirto gurigeenu ku soo leekaatay gabadhaas waxa dhacday in guriga laga xado gabadhay qaraabo yihiin ba u timaaday nin bay u dhiibtay ninkii baawur uu saarsaday ninka duu baawur saarsaday ninkii waa helnay muddo isa u badguubinay kadibna waxaan gabadha maxaa u qaxaystay wixii adeerkeed baa صح dadkan iyo dadka qaar waxay leeyihiin codka kor u qaad ani kulli waa maqlaa waa cod kor u qaad isnooleyha ma ku haysto صح qol ugu xiran tahay laami amniga u tagnay qolkii baa lagu tagay waa lagu jibin waayay haddii aan saas arrintu ahayd annaguna dee carmaan tagnay meesha martibaa ku ahayn aniga meesha carma tagay waxay dee waxba ma qaali kadib inayo abti u tahay shaqeeyo laga soo xadan qalbi ku xiranta ninkii boosasa ogaashay qaadeen qolkii ku jiray صح
ilmaha sibiga ah bay arkeen meesha ku xiran odayaashii waa qayleen waxay dhaheen tow ilmaha yarkaa sibiga ninka qolka ku haystay hawsheeda waa gelaynaa annagaana dhammaynayna annaguna dee ilmaha dadka soo qorsaday oo intaas soo la ekeysiisay oo aan cidna ku ogaan jirin oo cidna aan xaq ku lahayn oo aan galaas biyo aan laga siin baan ahayn ma garata marka annaguna dee ilmaha dadka soo qorsaday oo intaas soo la ekeysiisay oo aan cidna ku ogaan jirin oo cidna aan xaq ku lahayn oo aan galaas biyo aan laga siin baan ahayn ma garata marka la dhaho waa hoos baa lagu dhammaynayaa oo annaga dhammaynayna anaga raalli ka noqon karno ma ahan gabadha yarta inay cadaalad hesho inay waxa weeye cadaalad soo dhawey marka sax may maqlaysaa haddeer si fiican warka hadda marka si fiican warka noo talantaale marka gabadha yartaa ilmaha yarkaa ninkaas 6 bilood oo qolka ku haystay annagu cadaalad baan u rabnay ma garatay wax hoos lagu dhammayn karo iyo wax la qabyaaladeen karo iyo wax macnaha maantay laaluus lagu kala qaadan karo annagu waxa weeye midaas ma doonayno ilmaha yarka ah oo sibiga ah oo muxuu ahaay tuugnimada nagala soo qaatay waxaan rabnaa ilmaha yaryalow inaan cadaalad u helno ma garatay waa sax waxaan rabnaa in mataqaanaa muxuu ahaayey shareeco islaam baa jidda dad islaana jira muxuu ahaayey ilmaha yarkaa in inta qol lagu xirto in la farxumeeyo hadday sax tahay in waxa weeye dadku noo sheegaan hadday khalad tahana in ilmaha yarkaa waxaan ku weydiinayaa su-aashaan ku weydiinaya keenaa mi maqashaa boogacleh waxaan ku weydiinayaa gabadha ma la farxumeeyey gabadhaas waa la farxumeeyey annagayna guriga dhaawac noogu taalla ma garatay waa sax waa la jir dilay timaha laga xiiray meel walba nabarra uga yaalla halo mane maqlayaa waa ku maqlaa niyo marka arrinta noogu daran oo hadda haysto waxay tahay gabadha ilmaha yarka ninka qolka ku haysta 6 bilood in ilaa hadda laamaha amniga soo qaban oo xabsiga la dhigin oo gurigii gabadha ku haysta ilaa hadda dhex fadhiyo ma garad amaha amniga u tagteen marka ma carmada laftirkeeda dadka jooga mas'uuliyiin jooga mise laftirkeeda weeye ma soo qaban kamana howlgelin ma garateen gurigii buu dhex fadhiyaa ilmaha yarka gurigii qolka lagu jibiyay buu dhex fadhiyaa ma garateen markii ugu horeyso arrinkan ka soo hadasheen baa qof oo u dhow gabadha oo ka soo hadlay hadda ma ugu horeyso hadda uguma horeyso ayadeed baa ka soo hadlay adeereed baa ka soo hadlay muxuu ahaayay anaa hadda ka hadlayo abtigeeda oo hooyada la dhashay ma garateen wax isbedelana ma laha wax isbedelana ma lahan ilmihii yarka ana baaritaan baa loo diray baaritaankana بو قدك كاحن ميغان سدو قدك كاحن كينانا بوه يوسف قدك كاحن aku maqlayaa يوسف ومين مقشان aku maqlayaa بو ماشي فدسك كاع وكا عصرنايا موبايلك انت قعدت ku qabsato banaanka kore albaabka xataa kala baxa at least anaga mimada codkaada muhiim noo ah because codkaada uu tagtagaya waxaan rabnaa waxay ma taqaan bulshada si fiican u fahmay shareeco islaam baa jidda dad islaana jira muxuu ahaayey ilmaha yarka in inta qol lagu xirto in la farxumeeyo hadday sax tahay in waxa weeye dadku noo sheegaan hadday khalad tahana in ilmaha yarka waxaan ku weydiinayaa su-aashaan ku weydiinaya keenaa mi maqashaa boogacleh waxaan ku weydiinayaa gabadha ma la farxumeeyey
gabadhaas waa la farxumeeyey annagayna guriga dhaawac noogu taalla ma garatay waa sax waa la jir dilay timaha laga xiiray meel walba nabarra uga yaalla annaga tan ugu daran inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun حكي waxaan la yaabanahay mataqaanaa meesha waa Puntland ma fahantay dhulka walba oo Soomaali ah in mataqaanaa dad xun iyo dad wanaagsan buu leeyahay qof mataqaanaa gabar yar inuu ku xadgudbo oo mataqaanaa dadka oo dhan isku wada raacayaan ma jirto meeshana dawlad baa ka jirto sharci baa ka jiro markii sharciga waxa la soo tago arrimo oo waxaa jiro oo qabiilo hoosaad ah oo wax lagu xalliyo oo mataqaanaa oo lagu qabto waxyaabahaas oo kaleeto nabadoonaa jiro wax walbaa jira sidee qof intuu gabar 8 jir ugu xadgudbay arrintiisa inta wax looga qaban waayo ilaa iyo internetka ee imaataa waxaas maxay tahay niyahu waa mid dhacday gabadha markii hash su'aal oo aan u baahnahay kaliya inaan weydiiyaa waxay tahay hadalkiisa oo dhan uu soo koobay hadda muhiimadda waa la dhageysto ma garatay intaa waxay tahay aan u baahnahay inaan aniga weydiiyo shakhsi ahaan qof walba su'aal uu qabi karaa arrinta dawladda maxay ka dhaxda horta ilaa meesha sharci baa ka jira moogtahay guys I think no qof tuuray sugan mar fama wallahi qof murder i haayo I don't care who you are hadii ninkan aan ku arko adoo qorto murderkaada ii soo baxo aniga I will give you block shit tada qaadanaysa so marka guys respect me hal xishmeeyo ama idin xishmeenaya keenana sii daawarka halo buu codka qasida ana maqlayaa waxaan ku maqlaa niyo marka arrinta noogu daran oo hadda haysto waxay tahay gabadha ilmaha yarka ninka qolka ku haysta 6 bilo in ilaa hadda laamaha amniga soo qaban oo xabsiga la dhigin oo gurigii gabadha ku haysta ilaa hadda dhex fadhiyo ma garad amaha amniga u tagteen marka ma carmada laftirkeeda dadka jooga mas'uuliyiin jooga mise laftirkeeda weeye ma soo qaban kamana howlgelin ma garatay gurigii buu dhex fadhiyaa ilmaha yarka guriga qolka lagu jibiyay buu dhex fadhiyaa ma garatay markii ugu horeyso arrinkan ka soo hadasheen baa qof oo u dhow gabadha oo ka soo hadlay hadda ma ugu horeyso hadda ugu ma horeyso ayadeed baa ka soo hadlay adeereed baa ka soo hadlay muxuu ahaayay ana hadda ka hadlayo abtigeeda oo hooyada la dhashay ma garatay wax isbedelana ma laha wax isbedelana ma lahan ilmihii yarka ana baaritaan baa loo diray baaritaankana buu qadka ka xun miyaa soo dhawo qadka ka xun keenana buu kuus qadka ka xun aku maqlayaa Yusuf waa min maqashaa aku maqlayaa buu meesha fadhiisa ka kac waxa ka codsanaya mobilka ta gacanta ku qabsato banaanka kore albaabka xataa kala baxa at least aniga muhiimada codkaada muhiim noo ah because of codkaada uu tagtagaya waxaan rabnaa waxayna mataqaa bulshada si fiican u fahanto oo lagu wada dhageysanaya maqlayaa niyo hadda maxaa la dhahaa hadda sheegaysay tan kuugu daran dhahday waxay ahayd ninka gabadha waxaas oo dhan u geystay oo ilaa hadda laamaha amniga aan soo qabano xorriyad magaaladiisa ku marayo ninka gabadha dhibka u geystay asi kaliya maahane asi iyo gabadha aabaheedba labadoodaba waxaa waaye waa isku dhibaatay u geysteen ma garatay haddii cid wax laga qabanayo kan gabadha iibsaday oo dhalay iyo kan mataqaanaa gabadha dhibaatada u geystay labadoodaba waxaa waaye waxaa wax ka qaban kara mataqaanaa dowladda
yaa naagtii kaxaysa guriga ka waday naagtii guriga dhibaatadaas oo geystoo dhan dowladda wax ka qaban karto xataa haddii inta lagu soo gudbiyo oo loo sheego wax walbo oo Soomaalida la soo gaarsiiyo meel walba ay joogaan oo mataqaanaa arrinkaas loo kaco waxa wax ka qaban karo oo mataqaanaa loo hoostagayo waa dowladda ma garatay arrinkaana saa aaminsanahay ilaa hadda dad mas'uuliyiin oo waaweyn ah maysan gaarin oo xagga dowladda ka tirsan mataqaanaa dadkii oo laamaha amnigii oo mataqaanaa carmo kala waa aqaanaa meel iska yar waaye iyo intii joogtay iyo odayaasha meesha joogay iyo waxaas mataqaanaa hoos ka wada hadlay dadkuna waa dad baahan iyo ma garatay xumaanta iyo dhibaatada ilmaha yar loo geysanayo waxaa kaga daran mataqaanaa qofka baahidiisa qancinayo ma fahantay maqlaysaa marka arrin laga aamusi karo oo mataqaanaa ma ahan hawla muuda ku jirtaa walaal ma maqlaysaan waa ku maqlaa si fiican niyo horta anagu haddii hawshu halkaa ka dhacday boosaasaan isla nimaano ma garat waa gartay gabadhii boosaasaa baaritaan lagu mariyay baaritaankan horta weli dowladdu ma soo saareen laakiin anagu baaritaankeena rasmiga ilmihii annaga ka wahaynaa guriguna noo jooga baaritaanka rasmiga annaga ogma garat welina dowladdu waa rune wax xaquuq ah oo cadaalada weli kama qaban maahana 3 dhaqaatiir oo maray baaritaankeeda isbitaalka Boosaaso ku maray ma garat